بسم الله الرحمن الرحيم وأن بقادنا يا هيئة باريستا تيلا ما تيلا يا ماريه هذا يا شغاله هذا بقى هوشان عروس دلك وهيان يا برجو أي بلعبين إن نجاه بيان وحي عنتو يا قلب رئيس مريو يا واحد كستوى شركة وحده معايو وعبد نجاسو قاره si aynu taa u gaadho oo inuu xaqiijino waxaa si dhowr qodob baynu baahannahay marka hore qof kasta maareeyaha ka bilow guddida ku dar shaqaalaha waxaynu u baahannahay qof wal oo hay-adda ka shaqeeya inuu kordhiyo aqoontiisa uu aada isugu u dadaalo in uu barto hawshan aada takhasuska gaarka ah ee chemicalka ah caafimaadka bini aadmiga saameysa waad soo barateen jaamacadaha ka soo baxdeen iyo iskuullada laakiin taasi kuma filla maalin walba adduunka waxba isbedelaya waxa soo baxaya scientific cusub markaa taa waan ku dardaaraya ta labaad waxaan isku dardaaraynaa hay-adda guddida tayada shaqaalahooda maareeyahooda iyo xafiiska madaxtooyada hoos timaadaanba waxa qura ee xilkan la gudan karaa haddii aynu helno dhowr arrimood marka hore bini aadmigu sidiisaba haddii xilka uu qaado uu ka soo baxayo mid cibaado iyo mid nolosha aba diimaha oo dhamme oo ta islaamka ugu weynta ugu dambeysay may fareen in badan digniin badan iyo shuruuc badan oo ilaa dil laga gaarsiiye haddii uu bini aadmiga dilo ama uu khiyaameeyo diinta islaamku in badan bay iwaanisay laba qodob oo hay-addan dusha ka saaran mid waa bini aadmigo fuliya ballantaa qaadaan tayada waxaad tidhaahdeen caafimaadkiina somalilan iyo inta ay wax ka iibsaa hanagu aaminaan annagaa u qabanayna annagaa idinka ilaalinayna inay cuntada iyo dharka iyo cabidaba aanay ku jirin wax caafimaadkiina waxyeela haddaba ballan culus oo dusha ka saaran hay-adda tayada iyo cidda ka mas-uulka aba taas sida lagu helaya haddaba in la xaqiijiyo waynu sheegnayoo bini aadmigu isma kantaroolo culimaduna waxay tiraa shaydaankaa ku badan markaa shaydaanka siduu isaga celiyo 5 goor tukada cibaadaysta akhriya uruud galabtii aroortii in badan baa laynooga diga shaydaankuna meelo badan buu soo galaa damaca hunguriga faanka madaxnimada meelo badan buu soo maraa markaa tan idinka kan kusoo hagaagaya waa kii ugu khatarsanaa caafimaadka biniadmiga soo maray si aanu shaydaanka haddaba iska ilaalino waxaa looga baahan yahay hay-addan aynu heshiis ku nahay maareeyaha guddida iyo shaqaalahaba in qof waliba qofkaa uu xukuma uu ka sarreeyo ama uu aqoon ahaan u maamulo in uu ku ilaaliyo qofkaasi inuu shuruucdii iyo xeerarkii loo dhigay iyo standardskii uu qofkaa ku ilaaliyo oo si adag ugu daba joogo hadday taasi dhici weydo oo sida hawlaha kale caadiga ee faraha badan ay arrintaas dabac keento hadda ogaada waxaa soo dambaynu qaadanaa bini aadmiga dhaqaalihiisii caafimaadkiisii noloshiisii wixii o dhan baa meesha ka baxaya marka idinka waxaa idiin dheer qolada la yidhahdo ciidamada ayaa la dhahdaa adduunka way ugu sharci adag yihiin oo ninka askariga ninku ka sarreeyo markay dagaal ku jira wax kuu xoraya qorigaa halkaa ka soo dhacaya aamusi laabta udhig wuu dhigaa hadduu dhig waana dil baa uxiga court marshal koonaaba lasoo tagaa nin baqday dee cadow xabad soo rida ayaa la yidhi halkaa la gaadhsiiyey bal dadkiina loo dhigay waxaa la arkayna ilaaliya ka warrama nagla janis iyo mid baa ka seexday iyo qalabkaasano nidan aqoon baa taabtay iyo khatarta caalamku galaya waa farabaday markaa haddii aynaan taa ku adkaynin dee maxaan u samaynaynaba qof waliba ha ku tashado hay-addan inaana sheeko iyo ku gelaynin dulcarar hawshaasina xubinta ugu weyna waa maareeyaha iyo guddida
hadday labaduba dayacaana anay soo fuulaysa marka inteena asaa u qoolaanana ilati laxuska loo timaadaan markaanu kadigsanaan intaas waa hawsha halkan looga baahan yahay wixii kale ee qalaba waxaa jira qalab fara badan oo hortiin abuurmay laboratoriyaal badan baa jira hay-ad waliba biyo wado dhismaha cisbitaalka laboratoriyaal badan baa carriga yaala marka waxaasoo waxay u baahan yihiin aynu qalabkii helno waxaanu doonayna aynu doonno inaanu xalilo laakiin inay ku daro aqoontii iyo disciplinkii sharciga la isku xukumaya qofka shaqeeya hay-adan tayada wastadu hadday soo gasho dadkaa laynaysa waan ogahay madax fara badan madax dowladeed tu dhaqan tu ganacsi dad badan baa idiin iman doona shaqaalaynta marka alaab la qabsado xaajiga hebeltiisi baa la qabsan doonaa dhibaataa ka iman doonta haddaydan u dhabaradayn inaad ku adkaataan sharciga ogoobay dadkii halkaa waxba ka soo baxay markaa taa waxaan u dheeraanayaa waxaana way nagu cusub yihiin laboratoriga iyo waxaan casrigii aad iyo aad bay nagu cusub yihiin marka waxaa ka mid tihiin hay-adda wuxuu kusoo ururayaan qalabadaa faraha badan ee meelaha hore yaalla ee idinkeeda khuseeya dhammaantood waxay hoos iman doonaan standarka halkan laga qabto hay-addu iminka intaasoo shaqaalaha iyo intaasoo qalab meeloontooda iyo maamulkooda wadi kuba la odhanaya laakiin maxaa dhacaya wixii kale qalab la keenaya wax kastoo halkana la keenaya qalabadana iminka dhowr sana ma dhaafaan oo tan dee wuxuu laga soo tuuraya caalamka wixii waxba cusub sanad laba laga soo tuuraya marka waxa weeye qalabada meelaha yaalla oo dhan circular dhammaan standardka halkaa laga xukumaya qofkii maamulkeeda hayaa ha ku dhibsooda isagu hadduu standardka laboratorygaasi iman waayo ka aadi ku dhoweey petroolku hadduu keeni waayo standardka halkan isagaa u taalla ka biyaha ka dhismaha mid kasta waxa weeyaan ama wajaalo ha yaalo ama lascaanood ha yaalo ama ceergaaba ha yaalo laab oo dhan standardkan waa laga certify garaya waayo halkana qaranka ka mas-uula xilkaan idinkaan idinku ogyahay waxaan rajeynayaa inaynu waddadaa qaadno inaad aada isu ilaalisaan mas-uuliyadda ugu weyna waa guddida iyo guddoomiyaha waayo anagu markaa waxaad soo gudbisaan baanu aqbala waayo aqoontii aan isku baarnahayn maanaa si diyaaran idinkaan idin aaminsan qualitigi ma soo gudbay haa ilaa inanka yara laboratoryga talabada horse soo qaadaya mas-uuliyaddaas inu saaranta ogaada waan idin hambaliyeynaynaa waa idin mahadnaqaynaa waa idin dhiiragelaynaa aad iyo aadna waa idinku faanaynaa haddaad ummadda caafimaadka ilaalinaysaan waana mahadsantii wasalaamu calaykum